ka mid ah xidigaha Bollywoodka oo shaqooyinkoodii kasoo tagay si ay ugu soo biiraan filimada. Dadaalka ay sameeyeen xidigahan Bollywoodka runtii ma noqonin wax micno daro ah, waxayna gaareen wixii ay ku riyoonayeen. waxaana ka mid ah kuwaasi: 1. Akshay Kumar wuxuu suunka madow ka qaatay Taekwondo ka hor inta uusan u dhaqaaqin Bangkok. intii lagu jiray muddadii uu halkaa joogay, wuxuu qabtay shaqooyin aan caadi ahayn sida karinta cuntada jidka lagu iibiyo iyo barista fanka. kadib wuxuu ku soo laabtay oo uu saldhigtay magaalada Mumbai, wuxuuna halkaa ka furtay meel lagu tababarto. mid ka mid ah ardaydiisa ayaa u soo jeediyey inuu ku biiro jilidda filimada. dhowr bilood kadib, soo saaraha filimada ayaa u soo bandhigay door hogaamineed ee filimka Didar. waqtigan la jooga, Akshay waa mid ka mid ah toorayaasha ugu guulaha badan Bollywoodka. sanad walba dhowr filim ayuu keenaa, wuxuuna ahaa filimkiisii ugu horeeyay Songan 1991. 2. Raveen Singh dhammaanteen waan ognahay in Raveen Singh loogu talagalay filimada, isagaba wuu ogaa inuu ku qurux badan yahay shaashadaha waaweyn, laakiin wuxuu doortay inuu dhammaystirto waxbarashadiisa marka hore. markuu u dhameeyay qalinjabidda kuliyadda ganacsiga iyo dhaqaalaha ee magaalada Mumbai, wuxuu aaday dalka Mareykanka si uu usii wato waxbarashadiisa, wuxuuna shahaadada Bachelor of Arts uu ka qaatay jaamacadda Indiana. kadib markii uu kasoo noqday 2007, wuxuu ka shaqeeyay inuu noqdo nuqul ka mid ah wakaaladaha xayeysiinta. ugu dambeyntii wuxuu filimkiisii ugu horeeyay ka helay shirkadda Yash Raj Films, filimkaasoo lagu magacaabo Ban Banja Bharat 2010, waxaana la waday Anushka Sharma. 3. Taamsi Banu iyadoo bandhigyo cajiib ah ka sameysay aflaamta sida Pink, Mulk iyo weliba San Ki Aam. Taamsi Banu waxay hadda ka tirsan tahay gabdhaha ugu guulaha badan. si kastaba ha noqotee, qaar badani ma oga inay hore ugu soo shaqeysay software engineering kadib markii ay ka qalin jabisay injineerka sayniska kuliyadda Guru Tech ee ku taala New Delhi. waxay u ololeysay inay muujiso Channel V show la yiraahdo Get Jores, taasoo u horseeday dhanka madadaalada. waxay markii ugu horeysay sameysay filimka Telugu Chimandi Nadam 2010. 4. John Abraham kadib markii uu qaatay shahaadada masterka sayniska ee maareynta ammaanada waxbarasho ee Mumbai, John Abraham wuxuu u shaqeeyay hay-ad xayeysiisa sida qorsheyaha warbaahinta. si kastaba ha noqotee, si uu u sameeyo xoogaa lacag oo dheeraad ah, wuxuu bilaabay qaybta modelka, taasoo sababtay in filim sameeyayaasha si dhaqso leh dalabyo uga helo. wuxuu ahaa filimkiisii ugu horeeyay Jasmine oo soo baxay 2003. Parineeti Chopra dhowr qof ayaa og in Parineeti Chopra ay safar dheer ku qaadatay ka hor inta aysan wadadeeda ka hormarin kaamirada. markay ahayd 17 jir, waxay ka heshay 3 shahaado sharaf xagga ganacsiga iyo 2 dhaqaalaha jaamacadda Manchester Business School ee boqortooyada midowday. markii dambe waxay sii waday inay la shaqeyso naadiga kubadda cagta ee Manchester United, iyadoo ah hogaamiye kooxeed ka shaqeeya qaybta cuntada. kadib waxay shaqo ka heshay la taliye qaybta waaxda suuqgeynta ee shirkadda Yash Raj Films. ugu dambeyn waxay sameysay filimkeedii ugu horeeyay ee Bollywoodka Ladies First Reggae 2011.